munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen qaar ka mid ah jaaliyada Soomaalida ee magaalada London ayaa lagu taageerayay murashaxa cusub ee xilka madaxtinimo ee dalka Soomaaliya mudane Dr. Cabdi Maxamed Axmed oo ka mid ah qurba joogta Soomaalida. walaalayaal waxaa sharaf u ah musharax Dr. Cabdi Maxamed Axmed inuu caawa u helo waqti oo idinku soo gudbiyo sida uu u arko ummadda Soomaaliyeed baahida ay u qabto in isbedel u yimaado. waa fursadii dhalinyarada waa fursadii aqoon-yahanka ku soo dhawaada waxaan leeyahay musharax madaxweynaha asagana waxaan leeyahay ku soo dhawow waxaan ka rajaynaynaa waxa waaye isbedel oo la taabo karo oo naqda mid lagu maxuu ahay looga bixiyo dhibaatada Soomaaliya maanta ka jirta haddii ay beedmo. Dr. Cabdi Maxamed Axmed oo 44 jir ah ayaa dalka dibadiisa wax ku soo bartay gaar ahaan dalka India isagoo ka soo baxay kulliyadda cilmiga siyaasadda kadibna waxbarasho kale ku qaatay dalalka Holland iyo dalka Britain oo iminka uu degan yahay. hase ahaatee waxa uu soo bandhigay waxqabadkiisa haddii xilka madaxtinimo loo doorto doorashada soo socoto. mudanayaal marwooyin haddii aan ka hadlo siyaasadda arrimaha gudaha waad la socotaan Soomaaliya waxa ka jira dhibaatooyin iyo burbur badan tan ugu horeyso aan awood saari doona haddii Ilaahay raali ka noqdo waxay noqon doontaa dhinaca ammaanka. waxaan rabaa Soomaaliya ammaankeeda laga soo bilaabo Raas Caseer ilaa Raas Kamboni ammaanka Soomaaliya in aan sugo haddii Ilaahay raali ka noqdo. markii aan sugo ammaanka guud ee wadanka talaabada labaad ee aan ku xijo doono waxay noqon doontaa in Soomaalida qaxday ee wadanka gudihiisa ku qaxay iyo kuwa wadamada dariska ah u qaxay in aan dib ugu soo celiyo wadanka Soomaaliyeed. talaabada saddexaad waxay noqon doontaa in aan sameeyo tirakoob ka hirgala wadanka Soomaaliya oo dhan. sidoo kale waxa uu intaasi ku daray murashaxani haddii uu guuleysto dhanka horumarka dalka Soomaaliya sida uu ka yeeli lahaa. mudanayaal marwooyin horumarka dalka waxaan rabaa 5 sano ee soo socoto in Soomaaliya ay gaarto isku filnaan xagga wax soo saarka ah oo aan ka maarmano kaalmo ama deeqo noola soo diro oo dibadaha noo laga keeno. shanta sano ee ku xigto waxaan rabaa Soomaaliya in aan ku biiriyo wadamada wax dhoofiyo oo exporting countries ka oo Soomaaliya wax inay soo saarto ay ku finaadaan ay dibadda dhoofiso. doorashada madaxtinimo ee dalka Soomaaliya ayaa waxa doortaa kaliya golaha baarlamaanka isla markaana murashaxan ayaa waxa ugu baaqay xubnaha baarlamaanka ku-meelgaarka ee Soomaaliya inay soo doortaan nin aqoon leh isla markaana ka fikira aayaha dalka Soomaaliya. marka waxaan fariin u diray xildhibaanadaas Soomaaliyeed in qofka ay dooranayaan in ay ku doortaan aqoontiisa wadaninimadiisa iyo qorshihiisa siyaasadeed. taas ayaa ah tan wanaagsan oo ay u dhaarteen oo ay kitaabka Quraan ah gacanta u saareen. Cabdi aniga personal waa taageersanahay inta igu fikradana waa taageersan yihiin isaga wixii la mid ah oo horumarinta iyo wadanka isku imaatinkiisa ku qaabilayo. waxaan leenahay Cabdi ku soo dhawow xilka isku sharaxday waxaan leenahay Ilaahay casaa wajalaha ee kula garab galo. maanta waa maalintii musharaxiina sharafta leh loo wada maqsuude marag ma ka noqotaan madax bannaan sharaf loo horseedayaaye mawlow Ilaahay magaciisa dheereey. murashax Cabdi Maxamed Axmed ayaa waxa uu ka mid yahay murashaxiinta Soomaaliyeed ee u tartamaya jagada madaxtinimo oo la filayo in doorasho ay ka dhacdo dalka Soomaaliya Agostada foodo inuu soo hayso. Daahir Murdafe wararka Universal.